qoraaladan laga qoray madaxweynuhu madaxweyneedkiisu uu dhammaaday Cali Guudlaabe Xuseen ayaa dhaliyay hadal hayn aad u xoogan. qoraalka qabsaday baraha bulshada ee laga qoray madaxweynaha madaxweyneedkiisu uu dhammaaday ayaa u qornay sida tan: Hirshabelle waxay leedahay nasiib weyn. Maamulkii Hirshabelle waxaa u dhalatay maalin ay ku faanto hogaamiye leh sifooyin laga raadinayo hoggaanka dhabta ah. Cali Guudlaabe Xuseen ma ahan oo keliya hogaamiye siyaasadeed, balse waa aaludiin, qof ku tixgelinaya waajibaadka Alle iyo sidoo kale sunnooyinka Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Naxariis badan, mid qalbi furan oo markasta u taagan daryeelka masaakiinta, sadaqa jacayl, gacan furan oo lagu yaqaano u gargaaridda dadka tabaalaysan. Shacabka ku sugan guud ahaan Hirshabelle ayaa aad uga carooday markii ay arkeen qoraalkan laga soo qoray madaxweynuhu madaxweyneedkiisu uu dhammaaday ee Cali Guudlaabe Xuseen, iyagoo isla markaana waxba kama jiraan ku tilmaamay qoraaladan laga soo qoray madaxweynuhu madaxweyneedkiisu uu dhammaaday ee Cali Guudlaabe Xuseen. Liibaan Soobane Daawud, TV-ga raadiyaha caalamiga